fanaanka daljaceelka ku caanbaxay ee Dayaxdan Nuurshe ayaa diiday inuu dollar ku bedesho qadiyadda badda dalkiisa ee duulaanka ay ku tahay dowladda Itoobiya isagoo deegaanada duriyada Somaliland diyaar looga yahay in looga durbaantumo showgiisana Hargeysa looga shido loona saxiixo liise ka inaan loo macmiili doonin sida saaxiibadiisii fanka ee madaxweyne Muuse Biixi uu miirka ugu soo celiyay ilaa ay saxdii ka noqdeen. Somaliland ayaa showgiisii Hargeysa ku xirtay shuruud ah inuu raaligelin ka bixiyo ereyga badeenu iib maaha oo uu adeegsaday markii ay Somaliland heshiis sharci darre Itoobiya ugu saxiixday qayb ka mid ah xeebaha Soomaaliya iyadoo Somaliland fanaankan u balan qaaday in habeenkii ciidda codkiisa caruur iyo cirweelada farxad lagula dabaaldegayo qaranjooyinkuna heesihiisa ugu qoobka ciyaaraan hoyga fanka iyo gobolka ragga dushiisana dollar uusan ka faqriyeyn lagu daadiyo balse fanaanka ayaa ku gacan sayray Somaliland isagoo sheegay in qadiyadda badda Soomaaliya ay tahay lama taabtaan doodiisa ku aadan inuusan dollar dhaafsan doonin difaacidda qadiyadda badda iyo bariga Soomaaliya ayaa keentay duufaano aflagaada inuu kala kulmo badi dadka duriyada Somaliland iyagoo ugu cagajugleeyay inuu xabsi daa'im ku waari doono inta cimrigiisa ka dhiman hadduu cagtiisa soo dhigo meel ka mid ah carrada Somaliland. durbada dayax dadka ku colaadiyay showga Hargeysa waxaa ka mid ah fanaanada caanka ee Farxiyo Kabayare iyadoo ku tilmaamtay inuusan ahayn boqorka fanka caasimadda karbaashkooda dhanka internetka ayaana saaka lagu waabariistay. fanaanka Dayaxdan Nuurshe muqdishaawiyiintu waa midka ay ugu jecel yihiin fanaaniinta da'da yar ee saaxadda fanka xilligan ku jira wuxuuna gaaray heer lagu naanayso boqorka caasimadda isagu waa daljoogaan dibadda u dhoofin heesihiisana laga dareemo wadaniyad iyo daljacayl waana midii lagu bartay bilowga fankiisa isagoo ka mid ah fanaaniinta qaranka. Cabdi Umulcsanna waa kuma Dayaxdan Nuurshe isagoo daayara xaafadda Iskoolbuluusiya ayay ka soo burqatay burhaanta fankiisu dhalinta caasimadda oo xilliga raadinayay cid ay dhageystaan oo la jaanqaadaysa wacyigooda faneed ayuu buuxiyay kaalintii fanaaniinta qaranka ee heesaha qaraamka iyo cuudka ku qalaabarogi jiray kuwaasoo daayartu ay fahmi waayeen miisaanka iyo midhaha ku jira oo aad u cuslaa awgeed. wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada qoobka ciyaarka looga haray ee degmada Xamar Jajab magaciisu waa Daahir Maxamuud Muuse wuxuu ka soo jeedaa qoys culimo ah oo diinta ku adag haddana caqabad kuma noqon riyooyinkiisa faneed waana u ogolaadeen inuu qoobal noqdo kolkii ay arkeen firfircoonida ka muuqata iyo sida uu fanka ugu dhiiran yahay. heestiisii ugu horeysay ee lagu magacaabo Magan waa midda uu ku kasbaday taageerayaasha bedelay magaciisa una bixiyay Dayaxdan Nuurshe dadka ayaana ka daba dhacay markii ay la cajabeen codkiisa dabacsan ee lagu laray ereyada diiran ee daljaceelka xambaarsan taasoo keentay inuu si fudud u dego qalbiyada mucaashaqiinta fanka. dadka yaqaan waxay ku sheegaan inuu yahay fanaan degan aan dadka ku dhacdhacin una dagaal badnayn sida fanaaniinta kale waana midda keentay inuu ka mid noqdo fanaaniinta loogu jecel yahay Soomaaliya xilligan. bishaaro waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad faca ku dhaafi karto faqrigana aad kaga bixi karto. waxaan ku haynaa fursad aad 3 jeer dhaqaale ku samayn karto waxayna lacagtaasi ku soo geli doontaa si maalinle bille iyo sanadleba ah. haddaba ma ku nooshahay wadamada qurbaha sida Mareykanka, Kanada, Yurub, Carabaha iyo Afrikaba mushaarka shaqadaadu ma kugu yar yahay masruufka qoyskaagana ma ku dhiban tahay. manager Cusmaan oo degan wadanka Kanada wuxuu diyaar ku leeyahay sidii uu ku garab qaban lahaa qof walba shaqada qabanaya loogama baahna khibrad iyo aqoon toona. manager Cusmaan Xuseen oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Forever Living waxa fursadaha dhaqaale ee uu ku yaalwahay 6 sano ee u dambeysay ka faa'iiday Soomaali aad u tiro badan. si aad maamulaha Soomaaliyeed ugu sareeyo shirkadda Forever Living xiriir ula samayso fadlan la xiriir nambarada WhatsApp-ka ee shaashada kaga muuqda.